cadeymo la taaban karo oo muuqda iyo kelmado sidii rasaasta oo kale u dhacaya ayay Cadiila Haashim la soo hor istaagtay maxkamadda caalamiga ah ee Hague iyadoo cadeysay in gumeysiga Israa'iil uu xasuuq ka wado marinka Gaza gaar ahaan shacabka ku nool halkaas. haddaba waa tuma haweeneydan ruuxday carshiga argagixisada Israa'iil soona jiidatay indhaha shucuubta dalalka Islaamka iyo Carabta. haweeneydan ceebaysay Israa'iil soona bandhigtay xaqiiqada iyo wejiga dhabta ah ee gumeysiga Israa'iil waa qareenad sharciga si fiican u baratay waxaana lagu magacaabaa Cadiila Haashim. waa 59 sano jir ku dhalatay magaalada Durban ee Koonfur Afrika sanadku markuu ahaa 1965 waxayna ka dhalatay qoys muslim ah. gudaha dhulka reer Falastiin gaar ahaan daanta galbeed waxaa looga yaqaanaa magaca haweeneyda wadada shuhadada. sanadkii 2014 waxay ku biirtay urur loogu magac daray fura wadooyinka shuhadada kaasoo looga dhawaaqay gudaha Koonfur Afrika. ururkan ayaana ka soo horjeeday deegaameynta xoogga ah ee Israa'iiliyiinta ee dhulka Falastiin. sidoo kale waxay caan ku ahayd in ay aad uga soo horjeedo derbiga midabta koorka ee ay Israa'iil ka dhistay daanta galbeed ee la haysto. waxayna mar walba ka dhawaajin jirtay in midabta koorka ay Israa'iil ku hayso Falastiin uu xitaa ka sii daran yahay kii bari hore ka jiri jiray Koonfur Afrika. Cadiila waxay heshay abaalmarino kala duwan oo ay ku jiraan abaalmarinta xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ee la qabtay sanadkii 2002. sidoo kale waxaa loo doortay haweeneyda sanadka ee Koonfur Afrika. sidoo kale waxay ku guuleysatay abaalmarino fara badan. Cadiila oo ka mid ah koox qareena ah oo dalkeeda Koonfur Afrika u matalaya kuna sugan maxkamadda caalamiga ah ayaa intii ay ku guda jirtay hadal jeedinteeda oo socotay muddo 25 daqiiqo ah waxay soo bandhigtay doodo badan oo ay hordhigtay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda si ay u cadeyso in Israa'iil ay dambiyo xasuuq ka geysatay Gaza. waxaana ka mid ahaa cadeymaha ay soo bandhigtay in meelo ammaan ah oo uusan dagaal ka socon oo shacabka reer Gaza ay u barakaceen ay diyaaradaha Israa'iil ugu daba tageen halkaas kadibna ay duqeeyeen. waxay kaloo soo bandhigtay in Israa'iil ay shacabka marin Gaza ka xarimtay waxyaabo badan oo nolosha daruuri u ah sida raashinka, biyaha, korontada iyo goobaha caafimaadka. sidoo kale waxay soo bandhigtay cadeymo muujinaya in ciidamada gumeysiga ay bartilmaameedsadeen isbitaallo, masaajidyo, kaniisado, suuqyo iyo iskuulada ay carruurta wax ku bartaan. Cadiila oo soo bandhigaysay sawirada xabaalwadareedyo ayaa sheegtay in dagaalka Israa'iil ee marinka Gaza uu ku riixay Falastiiniyiinta halkaas ku nool in ay qarka u fuulaan macluul aad u daran. waxayna carabka ku adkeysay in xaaladda ay dadkaas ku sugan yihiin ay aad halis u tahay lagana yaabo in badan oo ka mid ah inay u dhintaan baahi darteed. iyadoo ka hadlaysa xasuuqa iyo duqeynta gumeysiga ku hayo Gaza waxay tiri Israa'iil waxay isbuucii ku garaacdaa shacabka marinka Gaza ilaa 6,000 oo bam iyo bambooyin miisaankoodu ka badan yahay 900 oo kiilogaraam. waxay kaloo xustay in weerarada Israa'iil ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 60,000 oo qof qaarkoodna ay ku naafoobeen. sidoo kale waxay sheegtay in badankood ay yihiin carruur iyo haween. sidoo kale gabadhan oo soo jiidatay dareenka bulshada caalamka gaar ahaan kuwa Islaamka waxay ku takhasustay sharciga dastuurka iyo maamulka waxayna shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaadatay jaamacadda Natal ee isla magaaladaas. waxayna u sii gudubtay inay waxbarashadeeda ku dhameysato dalka Mareykanka gaar ahaan jaamacadda St. Louis halkaas oo ay shahaadada masterka ka qaadatay. haddaba sidee u aragtaa geesinimada ay muujisay gabadhan reer Koonfur Afrika? aragtidiina noogu soo hagaajiyay qaybta commentiga. mahadsanidin.